madaxweyne Farmaajo oo amray in lacagta laga jaro ciidanka AMISOM loona wareejiyo ciidanka qaranka Soomaaliya. Askarta qarankeena ayaa farxad iyo guul u dabaaldegaya. Madaxweynihii Jamhuuriyadda ayaa qaadaya tallaabo geesinimo leh oo uu sheeyaha ku cunaqabateynayo. Waa la soo afjarayaa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Waa la soo gabagabeynayaa dhaqaalaha faraha badan ee dalkan ay ku qaataan iyagoo isticmaalaya magaca nabad ilaalin balse aan wax tallaabo u qaadin xaqiijinta amniga Soomaaliya. Warbixintan Milga TV ayaan ku eegi doonaa amarka madaxweyne Farmaajo ee ku socda AMISOM iyo farxadda ciidanka qarankeena. balse marka hore saaxiibayaal sheergareeya muuqaalkan oo like iyo love nasaara si aan u guda galno faafinta xogtan xasaasiga ah. sidoo kale nagu soo biiro follow-de page-keena Milga TV. waa hagaag aynu ku bilownee xogo hoose oo helay Milga TV waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo saaray amar culus oo ka dhan ah ciidamada AMISOM ee jooga gudaha dalkan Soomaaliya. fariin ayuu u diray howlgalka qaramada midoobay wakiilka qaramada midoobay ee jooga Soomaaliya iyo hay'adaha iyo sidoo kale dawladaha caalamka ee taageerada ku bixiya AMISOM. waxa uu amray in gebi ahaan lacagta laga jaro ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala, isla mar ahaantaana lacagahaas loo wareejiyo geesiyaasha qaranka difaaca dalkeena iyo kuwa dhimanaya dalkooda hooye ee Soomaaliya. waa ciidanka qarankeena. Farmaajo ayaa tallaabadan qaaday kadib markii uu arkay lacagaha faraha badan ee AMISOM ay ku qaataan magaca Soomaaliya, taa beddelkeedana wax shaqo aysan ka qaban dalkan bal ay iska joogaan fariisimahooda muddo sanado ah. waa tallaabo geesinimo mudan, waa tallaabo bogaadin mudan, isla markaana loo qaaday horumarinta ciidanka qaranka Soomaaliyeed. beesha caalamka ayuu ka dalbaday Farmaajo in si degdeg ah loo jaro dhammaanba dhaqaalaha la siiyay ciidanka AMISOM maadaama ay ku fashilmeen sii joogtaankooda Soomaaliya. lacagahaas waxaa loo wareejinayaa ciidanka qaranka. askarta ayaa farxad iyo dabaaldeg maanta sameynaya. guul weyn oo taariikhi ah ayuu Farmaajo markan u soo hoynaya ciidamada qarankeena. waa laga takhalusayaa AMISOM iyo sii joogtaankooda Soomaaliya. waa la soo gabagabeynayaa howlgalkooda muddada 15 sano ka badan socda. way ku fashilmeen xaqiijinta amniga Soomaaliya. Soomaaliya iyo 40 sano ee ugu dambeysay waxa ay heshay ciidamo geesiyaal ah, tababar fiican qaba, hub casri ah ku qalabaysan, kuwaas oo qaadan kara doorka hogaaminta AMISOM ee amniga dalkan iyagoo si guudna amniga Soomaaliya gacanta u dhigi kara. waana sababta madaxweyne Farmaajo uu qaaday tallaabadan la yaab ku noqotay AMISOM ee lacagaha looga jarayo. jahwareer ayaa ka taagan xerada Xalane oo afriisinka ugu weyn ee ciidamada AMISOM. amarka soo baxa ayaa ootin ku noqday meel ay wax ka bilaabaan ayay laayihiin. qarankan wuu hormarayaa, lugihiisa ayuu ku isaagayaa, mana jirto cid loo joojinayo. sheeyaha dalkan waa laga saarayaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowaan iska diiday kuna adkeysay mowqif adag oo ahaa in ciidanka AMISOM Soomaaliya laga saaro, wuxuuna diiday in hal sano loogu daro dalkan ay sii joogaan. hase yeeshee way baxayaan AMISOM dabiiqada bishan iyo bilowga sanadka cusub ee 2022. howlgalkii AMISOMna howlgalkii AMISOM ee Soomaaliyana cimriga ayaa loo sii gaabinayaa. dhaqaalihii xad-dhaafka ahaana waa laga soo wareejinayaa. ciidamada qaranka ayaana loo wareejinayaa. mushaar kordhin, dallacsiin iyo sidoo kale gunnooyin ayaa la isugu darayaa ciidamada qarankeena si amniga dalkan ay u xaqiijiyaan. haddaba daawade, adigu maxay kula tahay? sideese u aragtaa tallaabada madaxweyne Farmaajo uu qaaday? fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay daawade ku reeb qaybta commentiga. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.